hawlaha arlada haddii lagugu aamino ummadda uu sabeegiyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysi ehela sheego ay furan idinkuma arkaysi ina adeerko ay furan idinkuma arkaysi ina adeerko min xilkaaday eed qadiihoy min xilkaaday eed qadiihoy بسم الله الرحمن الرحيم وافراح عبد الرحمن الشيخ عبد الله halkan waxaan uga dirayaa tacsi xanuun badan oo geerida ku timid saada cali warsame waxaan tacsi u dirayaa gaara reerka ay ka baxday eheladeedii caruurteedii iyo Soomaali oo idil waayo waxay gabar u heelan in isku soo celiso Soomaali waxaa jira dad aan ogolaan in isku soo noqdaan Soomaali muqdishona la tago waayo waxaa kamid ah ninka dhan ee madaxda liirada General Gafo oo aniga ii diidan gurigeyga inaan ku soo noqdo oo ku yaala airportka aadan cad ka soo horjeeda oo hadda dawqaysagii ka dhistay dhulkaygi waxaana kamid ah oo cadeynaya inuu diidan yahay la isku soo noqdo dhulkaygi ayuu dhistay xoog lagu haystaa ina diidan yahay marka waxa weeyaan waxa fiican in ilaahayna laga baqo ummadda rabta inay soo noqoto waxooda qaadatana aan loo diidin kuwa siyaasad ahaan raba dadkeen isku soo celiyaana aan bilaash loo tooganin magacaygu waa Cabdi Xasan Cabdullaahi waxaan halkan uga tacsiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed geeridii foosha kulmeed ee ku timid saada cali warsame gaar ahaan waxaan u tacsiinayaa familka ka dhalatay iyo caruurteedii haddaan tacsiinay inta uga baxo sida xaqiiqiya waan wada ogsoonahay dad waxaa jira nabadiida oo diidaya Soomaalida isku soo noqoto waxaana ku cadeynaynaa sida guriga Ifraax Cabdiraxmaan oo bishii January aanu soo saaray video loogu magac daray dulmiga dahsoon oo cabashadanada aan ugu soo gudbinaynay dawladda Soomaaliyeed nasiib darro dawladda Soomaaliyeed aan doonaynay ninka dhammaa ee generaalka ahaa ee airportka haystay inay wax nooga qabato waxa weeyaan ilaa hadda nooma soo jawaabinin taasna waxa weeyaan wax loo baahan yahay ma aha mudana madaxweyne Xasan Sheikh waxaanu ku cadeynaynaa 5 generaal oo dawladda kamid ah waxay noo cadeeyeen General Gafo qofka kaliya oo wax ka qaban kara in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu yahay arrinka waxaanu doonaynaa maadaama uu yahay generaal dawladda u shaqeeya haystana airportka ama laanta socdaalka ama baasaboorada oo arki karto inuu joogo muraayad waddanka laga soo galayay aad arki karto inuu yahay ninkii Soomaaliya soo dhaweyn lahaa aad isla markaana arkayso inuu dadkii shacabka ahaa ee soo noqon lahaa ee joogtaha guryahoodii uu haysto sida Ifraax Cabdiraxmaan oo kaleeto waxaanu doonaynaa arrinkan wax ka qabato oo si gaara maadaama la yiri Xasan Sheikh mooyee qofka wax ka qaban kara ma jiro oo warqadii maxkamadda uu aqoonsan waayay oo booliskii fulinta uu aqoonsan waayay arrinka waxaanu doonaynaa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud kitaabkii aad martay qaybta ay ku lahayd Ifraax Cabdiraxmaan inaad maaragtay ka jawaabto oo arrinka jawaab ka bixiso gurigaas la soo celiyo maadaama ay tahay gabar maadaama caruurteedu ajnabi yihiin oo Talyaani yihiin waxa weeyaan arrinka waxaanu ku sheegnaa madaxweyne in gabadha gurigeeda ninka caruurta dhalay uu soo cadeeyay inay guriga ayada leedahay ummadda dariska oo dhan ay ogsoon tahay waxaanu ka codsanaynaa inta ciidamada haysato aad soo fiiriso gurigaas meesha uu ku yaalo iyo sida loo qaybsaday ee Gafo uu qaybiyay wax la qarin kara maaha marka gurigaas oo dhererkiisu uu yahay 50 balaarkiisuna yahay 40 lambarada guriga uu ku fadhiyana ay kala yihiin lambar 10 iyo lambar 11 marka inta saddex meelood loo qaybiyay oo qaybna uu Gafo dhistay qaybna saaxiibkii uu ka yahay wakiil qaybtii kalena in adeerkiis Cabdullaahi Xuseen Waran oo ciidanka militariga dawladda Soomaaliyeed ah oo gaashaan la saraa aanu ka saaray arrinkaas waxa weeyaan wax la qarin kara maaha nin wax ka qaban lahaana waa adiga si aad Soomaaliya isku soo celiso magaca dawladda Soomaaliyeed loo badbaadiyo arrinka wax ka qabo
haddii arrinkaa wax laga qaban waayo waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inaan hadhowna la eedaynin oo arrinkaas aan meelo badan u gudbin doono dukumiintigaasna waanu turjunay waxaan ku turjunay luqadda Ingiliishka Carabiga iyo Faransiiska waxaanan u gudbin doonaa albaab kasta oo waxa weeyaan ku habboon marka ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan dawladnimadeeda ma doonayno dhaawac iyo ceeb lama rabno qaybta nooga aadan waxa weeyaan waanu samiray ilaa hadda waxaanu markaa codsiga iyo marlabaad ku soo celinaynaa in waxa weeyaan dawladda Soomaaliyeed ka qabta arrinka mala la oran karo arrinka midna arag waayo internetka iyo meel walba ku jira arrinkaas marka waxaanu marlabaad u soo celinay inaad ka qabataan waxaan bishii January 2014 hawada soo gelinay video la magac baxay dulmiga dahsoon videogaas oo ka hadlayay qiso iga qabsatay aniga Muqdisho oo ahayd magaalada aan ku dhashay ku koray waxay arrintaasi keentay qisada haddaan faaleeyo dhul aan leeyahay oo ku yaala garoonka aadan cadde international airport agtiisa dhulkaas oo hadda uu gacanta ku hayo nin uu xoogna ku haysto haddaan idin jilciyo nin ka tirsan madaxda qaybaha ugu sareeya videogaas aan soo hawada geliyay waxaan sugayay in jawaab dawladda iiga soo celiso hase ahaatee wax jawaab weli kama aan helin taasina ma aha in aanu xaqayga ka harayo xaqayga weligay waan u dagaalamaya waan daba taagnaanayaa dadkii kitaabka u maray inay Soomaali xaqooda aan la isdulmiina waa taagan yihiin aakhirna waa la isweydiin dambiyada la kala gelayo marka anu waxaan doonayaa nin dhan oo madax ah oo generaal ah sabab ay gabadh masaakiina oo ilmo ajnabi ah cadaan haysata ay intay u doonato ay tira waxbaad iga dhacdo waxaad iga qaadatay wax aqliga gelaya ma aha waxaan doonayaa walaalayaalo dad muslimaan wada nahay in aniga xaqayga la isiiyo waxayga la iiga soo qaado odaygan adeerkay ah ee aan isfahmi weyna ilaa iyo hadeer waxaan filayaa inaad ii soo jawaabtaan haddii Ilaahay yiraahdo marka waxaan ka codsanayaa mar labaad waan haddana ku celinayaa mar labaad madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka intaba ilmo sheekhow idinka aan ka rabaa inaad jawaab isoo siisaan oo si cadaalada arrintan uga soo wax uga qabataan halka hadaan uga baxo waxaan halkan ka salaamayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Mungaab walaalo waa ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh 114 quraankan ku salaamay aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta meesha hayso waayo anu TV-gan kaala socdaa mar walba waa eegaa hawlaha sad u wado si fiican bad hadda u wadaa anu waxaan aaminsanahay oo arkaa ninka kaliya ee raba inuu Soomaaliya xaqiiqatan isku soo celiyay inaad tahay oo rabto in la isku soo noqdo oo qofku wax ka maqan yahay haanta waxa la yiri guntay ka tolontaa waxa weeyaan waxaad ka soo bilowday meel hoose meel saran wad gaari doontaa إن شاء الله وضع ما يستري دونتا هانتا أنا بدن وضع كل سي دونتا هدو إلهي راد أنا قلنا كجرب تاجنا واي وحاطة هاي قف ربا سومال نسكو سودا نقطه قف كي كليه وجهر يربط هاي مقدشة سومالي بوضع له تذكر كوضع حيسا قف كي دقي جري قف كي كل شيء قف كي كقريب وحوين ومجال ديسي أدنى كاج مهد علنيا ولا له معانا بحد جري جري أنا قول أنقول يجري كيالا إن كسورجيت كإيربور كآذن عدة دولكا يجري جاب محكمة دي هراء قبل كبنادر يو إن بوليسكي محكمة دي إن تي بوليسكي عدول بق وحوين دول أي صاع عضيسي أو يسوع أقولادين ووحيجي وحوين وحن ربع هذا إن دولكا ولا له وحكي قبضته أو سوى ولا لما أضح يجو قبضته وحوين إن ولقى عد مدعين حوالي سلامتنا مرة بو إلهي يقوم مكلفه وكعلنيا كبر مساكين وقربها كنا والبان أهاي سبب نين جنرال ولي بس الرياء قاس أنو حكته أو وقبته أو يروح بيقدعي ماشي ما إيمان كرته أو عيدا يهوب يقبضن ما إيمان كرته تاسي وحويان إلهي كسكو إذن كان مغان دين أهاي وحان ربا إناد هوسو إكتان أهرين تايدا أو إن كسو قادان أي تصالون نقطه سوماليسكو سو علين تايدا قرقيقين وقوه الرأي waayo waxaan ahay dadka waxooda laga haysto aan laga hadal waxna aan loo qaban ilaa iyo hadeer waxaan fariintan gaarka u dirayaa General Gafo waa ku salaamay adeerka taabay dadiisa leeg maanta aniyadu inaan isxaq xagano waa laga qurux badnaa laakiin markii message-kan ku soo direen telefoonka ku wada hadlaynay anuu message-kan ku soo qoray waxa kamid ah adeero aan kala xishoono adiga gabar Soomaaliyeed isxaq xagataan fagaaro tagtaan waa laga qurux badan yahay igama aad soo jawaabin waxa weeyaan waxa dhibaato ma leh
adeer wax weyn dhulkan iyo gurigan intaba aad kala qayqaybisay ee qaarna saadoonto ka yeeshay ana iskale guriga ninka aad tiri horta talyaani baa tiri talyaanigu waa taagan yahay alxamdulillah videona uu soo duubay uu ku cadeynaya gabadha guriga iskale waxa weeyaan haddaad doonto ilaa wasaaradda arrimo dibad ilaa safaarad waa isla socon doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaygana kama hari doono ilmahayga aabahoodna kama harayo waa carruurtooda dhaxalkoodii sidaana kuma qaadanaysid xoolo islaameed waxa weeyaan waad i afgaran weyday si sharaf iyo walaalnimo raba inaan ku kala baxno xoog baad isbiday awood iyo qorigaaga baad isbiday haddana waxaan kuu sheegay inaanan waxayga ka haraynin ayaan kuu caddaynayaa taas oo ay ka mid tahay sababaha aad maalin walba u leedahay gabadhu dokumentigeeda ha ii keento guriga ha ii keento guriga waan hayaay dokumentigeeda ha la timaado horta koo waxaan kuu sheegayaa adeero macaano adoo aan iga xumaanin anigu guri kuuma dhiibanin gurigaa waa laga qaxay iyadoo la isxabadaynay xabad dhuftaysan airbortka ka baxnay ninka ilmaha dhalin wuu caddayn doonaa ayaan ka qaxnay gurigaas marka cid loo dhiibay ma jirin waayo waa laga qaxay xabadii waa laga cararay qof walba naftiisu la cararay adeer xoolana dan lagama lahayn hantina dan lagama lahayn anigu kuuma dhiiban guri adna uma dhiiban qof kalena uma dhiibanin marka waxa weyn adaa isxil saaray keligaa marka maadaama aad hari weydo ood leedahay dokumentiga gurigeeda gabadho ha keento waan u hayaay ani guri iyo hay kuma oran daris baan lahaa tiri ani daris lama tiid waxaan caddaynayaa inaad been ka sheegtay ood ilaahayna aanad ka cabsanin marka aad tiri guriga ninka talyaaniga daris buu ilaahayo wuu ila deganaa gurigaas waxaan kuu sheegayaa maanta kugu kashifayaa ceebtaada gurigaa lama deganayn gurigaa dhismaa ku socday cid deganeed ma jirin waana la xaqiiqsan karaa meel la degay matoneel bay leedahay waxay leedahay nuurad bay leedahay derbi bay leedahay qof kastoo islaanaa soo arki kara gurigaa lama degin guriga aan deganayn wuxuu ahaa waxaan deganayn guri u dhow oon soo arkay markii dhaweytoon tegoo soo arkay isagoo burburay laakiin aad aan u burburin guri u dhow meesha ayaan deganayn oo gabar la oran jiray ha iga raalaata naanaysta in lagu aqoonsado baan u sheegay caasho juusto la oran jiray oo guri weyn oo dabaqa ku lahayd dhinaca jidka xaggiisa kale ayaan guri ka kiraystay oon deganaa anigii ninkuba aan deganayn oo la igu qabay oon gurigan daraadii aan u soo guuray halkaasi gurigeenna meel u dhow aan ag degno ka dhisno guriga markaad waxaa tiri guriga waa la deganaa oo talyaanigu u deganaa oday kaloo qaraabadaadana wuxuu yidhi guriga 50 sano ka hor dhul la cabiray ayaaba xaaraan la isku qabsaday damiyaala ma ahayn xaafadan oo ku koray meesha ku qaldantiina idin sheega damiyaala ma ahayn xaafadaas aan oo ku koray damiyaala 50 sano hortood la bixiyay oo odaydiin uu yiri damiyaala la bixiyay oo 50 sano ka hor dhul la bixiyay xaaraan in la isku qabsado 50 sano ka hor madiina qofku ku koray wuu yaqaana siday ahayd anigana 50 sano ma jiro laakiin waa ku koray xaafadaas waxaan meesha u doortayna waxay ahayd xaafadan garanayo waaye investmentiga inay xaafadii aan ku koray ay gasho ayaan u rabay oo halkaas iga taagneed arintu marka waxaan kuu sheegayaa adeer dhulkaas waxa doontaan sheeg waxa doontaan qoro runtu bay tagi dhulkaas xilligii la bixiyay waa la og yahay dadkii xaafadu ku korayna waa yaqaanaan dhulkaas 50 sano hortood kulay wuxuu ahaa way garanayaan gaala iyo taleen waxaan rabaa adeer inaan ku weydiiyo waan ku xishmeynaya adeerkii baa tahay adeer Soomaaliyeed baa tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka aad aniga maalin walba hadallada aan ka maqlay suuqa soo farayso gabadha dokumentigeeda ha la timaado waxa weey waxaan kuu sheegayaa horta wax ani adii dokumenti naga dhaxeeya ma jiro ani waxaan kugu ogaa adiga qaybta duulimaadka iyo immigrationka kugu ogaa adeer goorma lagu idmaday inaad hawlaha gobolka Banaadir faraha la gasho kuguma ogeyn arrimaha dhulna ani iima haysid marka haddii aad leedahay dhulka waan hayay waad haysatay weeye adeer 23 sano dhulka marna wuxuu ahaa xero qaxooti marna wuxuu ahaa isbitaal ana ogamaydo iskool ah marna wuxuu ahaa bakhaar loogu kaydiyo qaxootiga cuntada haddii intaasoo idil baa laga rabaa ijaarkoodii 23 sano ijaarkii kuu socday ayaa laga rabaa inaad bixiso ma ahayna inay tira dokumentigeeda keento adaa far kuu janjeedha kuu qalloocda way adaa laga rabaa inaad keento lacagtii iyo ijaarka aad guranaysay adiga iyo asxaabtaadii oo gafo.co ahayd inaad keentaan wixii aad ijaar cunteen 23 sano ee la soo dhaafay adaaban dac iyo daalac ku haysta waxa kale oo halkan rabaa inaan ka sheego adeer markaan ka hadlo reerka adiga aad beesha aad ka soo jeeday caaqilka aan ka filayay in uu wax ila qabto oo adiga uu soo kala dhex galo oo si odaynimo uu noo kala dhex galo wuxuu yiri oo website-yada aan ka akhriyay oo Ilaahay uga og yahay wuxuu yiri gabadha reer hebel buu yiri ha tagto jigjiga hana u doono tiiro dhul meeshaan boosku ma laha marka halkan waxaan ka cadeynayaa
inaad ka soo horjeedaan Soomaalina isku soo noqoto horta qabiilkayga aad bad ugu muranteen bal aan idin sheego maanta inkastoo aan ka leexleexanay oo Soomaalinimada taagnaa qabiilka idinka keenay anuu haddaba aan idin waramo anuu waxaan ahay qabiil ahaan naag aan la qarinayn oo Ilaahayna uu qarinin anuu waxaan ahay gabadh absama ah marka taas ha idin deeqdo hooyadayna waxa weeyaan habar awal weeyaan Sacad Muuse weeyaan Jibril Bakar weeyaan waa naag doctor Gabiley boqor Hargeysa meel walba degtaa hooyaday ilaa wajaalay degtaa marka gabar la garan waayay ma ihi hunuda iyo gabadha qabiilkeeda waa la garan waayay iyo sheekooyinkaas waxa soconaya ma aha idinka ay u kalifinay qabiilka hadlo marka adeer beeshaadan ka hadlaya ayaa ii soo hadhay beeshaadu reebtigeena ku hoosnooliin Hargeysa u soo qaxeen oo way degan yihiin oo way la dhaqmaan ree adeerkeena ku hoosnooliin oo jigjiga way ku dhaqmaan cid la dhacayna lama sheegin ilaa ay hadeer aana looma raacdo cid wax kama qaadato beel ahaan looma gumaado kun waxa tiraadeen na orod Muqdisho shaqo ku miliyada orodo jigjiga ku noqo oo ka doono wax waayo halkan kama aad soo jeedid anigoo ku dhashay magaaladaas Muqdisho oo wax ku bartay oo ku koray oo ku guursaday ayaad saay tiraahdeene ummad kale ma ogashiin horta waxa marka balaayada aad wadaan idinka adiga adeer iyo beeshaado inkastoo beeshaada dad badan ay nala jiraan oo dad sharaf badan ay ka buuxaan dadka lama wada cambaareeyo beeshaadu dad sharaf badan baa ka buuxa adeer oo waliba garab taagan oo aad uga xumaad waxa aad samaysay oo aan ku qanacsanayn waxa aad samaysay dadka lama wada cambaareeyo adiga khaasatan iyo odaygan xaad la yiraahdo waxaan u sheegayaa idinku waxaad tiin dad ka hor taagan Muqdisho inay beelo isku soo noqdaan laakiin dadkii u nasab sheeganaya Muqdisho ee uu ka soo jeedo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muungab ayaa diiday taas oo raba inaan soo noqono oo dadka soo noqdaan dadkaas ayaa doonaya kama naxaysaan magaalada in la isku soo noqdo ma rabtaan in dad la isku soo noqdo magaaladiina kama naxaysaan dadkii ka naxay ee asal ahaan laha ayaa idin yiri maya annaguna waa soo noqonaynaa cid ala cid doonta soo noqon waa magaalo u furan Soomaaliya oo idil jigjigana oo furantahay Soomaalida cid walba tagta magaalada aanu ka dhashay beel ahaan asal ahaan iyo hayb ahaan ka soo jeedo waliga cid kuma gumaysano cid walba waa degan tahay waana la dhistaa waana la degaa isjilciir magaal iska dhiga dadka lama xagxagto xoolahaygana saa ku qaadamaysaan waa taaganahay arrintu inta wax ka qabad leedahayna waxaan idin kula talinayaa beel ahaan dib iskugu noqda xoolo islaameed saa laguma dhacayo talyaanigii aad marna aastay marna konton naagood u dhistay marna aad tiri guri aan dhismo ku socdo oo miskiin uu dhex deganaa meel yar oo aan sibir xitaa lahayn waa nool yahay waa nin injineer carruurteeda aabahood luuqyadana ma dego waxa weeyaan wuuna i garab taagan yahay xoolahayga haddaan waayo arrintu meel fog ayay tegi doontaa ballan baan ku qaaday inaanan hadhin dacwan way ka taala xagtin haday soo gaadho meel walba dacwa ka taal gaafo xoolahayga oof kugu maqan bay noqonaysaa ama waad soo tufi ama banaankaad ka mari iga fujiso anu kuma oran wax ku dhiso dhulkayga intaad kala jajabiso fuji waxaad ka dhisatay ma doonaya dabaqaad ka dhistay iga kaxay waxaad ka dhisatay waxaan ku sheegayaa haddii aad dood qabto ama ay xaqiiqda ay tahay in aad wax ka hadasho soo fariiso TV-ga waxa ay soo gaadhaa hadalada dhulkaan waa gatay si khaldan ku gatay dhulka adiga you plan it planka adaa sameeyay adiga iyo groupkaaga plan baad samaysay you did it well laakiin kuma marayso because aniga waa noolahay waa soo taaganahay waxa weyn kaamana yeelayo soo fariiso TV-ga sidaan meel walba ugu qaylinayo uga qayli gabadhu waxba ma laha iyo waxa ma haysata iyo waxa weyn anu waanigan taagan ee meel walba ka sheegay marka intaad isleedahay way aamusantahay ifraax oo ma hadlayso oo malaha waxba isla ma hayso adeeg kugu maqantahay ifraax waaye ma hadho waxayga anu kama hadhaya xaqayga waxaan ku sheegayaa hay-adaha dumarka iyo xuquuqul aadamaha dhan inay maanta i garab taageen ilaaha ma hadle waxa la sugayaa bal in arrintu say u dhacday dawladda Soomaaliyeed ay u maamusho la arko hadeerna waxaan idinku soo dhaweynayaa fiidiyoogii carruurteeda aabahood si aad u aragtaan gurigiina aanu leeyahay weligay wax ma dhicin waxna ma xadin waa waxaygin xoolahaygina waa rabaa dollar baan ku gatay sida qalayguma siin xoolahayga waa u baahanahay ilmahayga aabahoodna u baahan yahay xoolihiisi. Buongiorno, sono Bellezza Giovanni, nato a Catania il 2745, di nazionalità italiana. Ho studiato in Italia, al Politecnico di Milano e sono laureato in ingegneria elettrotecnica. Più tardi, come descriverà il video che segue, sono capitato in Somalia e ho sposato la signora Ifra Abdirahman Sheikh Abdullahi,
sposati dal suo fratello Ahmed Noor. Da lei ho avuto più tardi Libian Bellezza, nato nel 1991, e Claudio Bellezza, nato nel 1998. La mia carta d'identità è AS 616 75 76, valida fino al 7 agosto del 2021. Questa è la mia carta d'identità. E dopo laureato ho lavorato per la Siemens, che è una grande compagnia di telecomunicazioni, la quale mi mandò all'estero nel Sultanato di Oman per fare una centrale telefonica internazionale. Io ero un softwareista in assembler e stetti là 1 anno e mezzo. Dopodiché, tornato in Italia, mi ero innamorato dell'estero e cominciai a fare una vita da freelance, dando le dimissioni dalla Siemens e andando a lavorare per chi mi offriva di più. Questa è la vita del freelance. Feci questa vita per molti anni andando in Africa e nel Medio Oriente, Africa e Middle East, e fui in Iran, Egitto, Libia, Mozambico e tanti altri posti. Le compagnie mi cercavano perché potevo lavorare sulla parte elettrica, meccanica, strumentale e anche sulle telecomunicazioni e software. Dopo 17 anni di questa vita capitai in Somalia per fare un impianto di telecomunicazioni, il cui cuore dell'impianto era una centrale di ultimo tipo al chilometro 4. La compagnia per cui lavoravo era l'Italcable e la compagnia che ci appoggiava era la British Telecom, con cui eravamo in joint venture. Quindi cominciammo a installare questa centrale al chilometro 4 e il nostro ufficio era al centro di Tripoli. Lì conobbi una ragazza che si chiamava Ifra Abdirahman Sheikh Abdullahi, che apparteneva a una famiglia modesta, però molto onorata, molto religiosa. Ci conoscevamo, ci sposammo, però cominciammo subito a cercare casa e vedemmo che le villette a disposizione erano molto costose. Allora decidemmo di comprare un terreno, che casualmente fu un terreno molto grande e comprendeva la zona 10 e 11 della mappa catastale di Mogadiscio, pur essendo in una posizione molto vantaggiosa, perché stava in posizione leggermente sopraelevata all'aeroporto e vicino c'era solamente una fabbrica di materassi. Il nostro progetto era quello di costruire una casa preliminare. La casa fu intestata a mia moglie, Ifra Abdirahman Sheikh Abdullahi, e attualmente che si è intestata solo a lei. Non c'è stato modo, nessun altro ha mai messo bocca in questa situazione. Quindi cominciamo a costruire questa casa e prima abitavamo alla periferia di Mogadiscio, ma preferimmo trasferirci in una villetta vicino alla casa in costruzione che apparteneva a una ricca signora che veniva di volta in volta a trovarci. Di lì potevamo seguire la costruzione in modo migliore. La casa andò avanti abbastanza rapidamente,
perlomeno per quanto riguardava il pian terreno, il che era sufficiente per andarci a abitare. La mia intenzione era quella di dare una sistemazione accettabile alla famiglia di mia moglie e al momento di inaugurare questa abitazione, che era sufficiente per viverci, scoppiò la guerra, quindi ci ritrovammo in mezzo a questa battaglia nel vero senso della parola, in quanto piovevano colpi di martaio verso l'aeroporto e riuscimmo a imbarcarci nell'ambulanza che portava la gente in ambasciata e così riuscimmo a rifugiarci in ambasciata. Pochi giorni più tardi la stessa ambulanza ci portava di nuovo all'aeroporto, dove c'era un Hercules che ci aspettava e che ci portò a Mombasa. Partendo io dall'aeroporto diedi un'ultima occhiata alla casa di mia moglie, alla nostra casa, e non ebbi particolare paura di perderla, perché tutti sapevano che quella casa apparteneva a Ifra Abdirahman Sheikh Abdullahi e alla famiglia Sheikh Abdullahi e nessuno, penso, considerando la morale dei somali, la religiosità dei somali, avrebbe osato occuparla né appropriarsene, in quanto era una questione, chiunque sapeva la situazione ed era una questione di onore. Ci portarono a Mombasa, dove stettimo alcuni giorni, e subito dopo un aereo dall'Italia ci portò a Roma eravamo sicuri che saremmo rientrati a Mogadiscio in breve tempo, ma questo non successe, per cui cominciammo a portare avanti la nostra vita in Italia. Ebbimo 2 figli, Liban Bellezza e Keise Claudio Bellezza, però hanno un'origine somala e non escludono di poter ritornare ad abitare nella casa di Mogadiscio, soprattutto mia moglie, che a quella casa è legata molto particolarmente, essendo mia moglie ultimamente si è portata a Mogadiscio e ha visto che la casa era occupata da persone strane e pensavamo che, siccome avevamo registrato presso l'ambasciata italiana e al Ministero degli Esteri sia il nostro matrimonio che la costruzione della casa, questo poteva essere un motivo di indurre le persone che ci abitavano a lasciare pacificamente la casa, in quanto le stesse persone, molte persone di Mogadiscio, ricordavano esattamente i fatti e quanto era successo a quel tempo. Grazie, vi ringrazio e arrivederci. Mi chiamo Liban Bellezza, siamo i figli, il primo figlio e il secondo figlio di Ifra Abdirahman Sheikh Abdullahi. Mio padre, prima dell'inizio della guerra civile in Somalia, comprò una casa per mia madre e quella casa era ancora in fase di costruzione all'inizio della guerra civile. Purtroppo oggi la casa è sotto controllo di qualcun altro, non della nostra famiglia, e vorremmo invocare l'aiuto del governo somalo per riprendere il controllo di questa casa. Grazie. Assalamu alaikum, my name is Liban Bellezza and this is my brother. We're the first and second sons of Ifra Abdirahman Sheikh Abdullahi.
Before the civil war began in Somalia, my father bought a house for my mom, and the house was still in construction at the beginning of the war. Today, unfortunately, the house is under control of someone else, not a family member, and we're invoking the help of the Somalian government to take back the control of the house. Thank you. haddii lagugu aamino ummadda uu sabeegiyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ila adeegto ay furan idinkuma arkaysid ila adeegto min xilkaaday eed qadiiboy